si buuxda u taageersanahay oqaashayadii go'aankii ay ka soo saartay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda laftigeedaba waxaan u malaynayaa beeshan makaahil aad ayaan loo aqoon beeshu waxay degan tahay Itoobiya ilaa iyo badda waxaanu leenahay xukuumadda xisbiga kulmiye ee uu hogaamiyo Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxqabadka ay ku faanto beesha makaahil way ka gudan tahay ma beentayba way ka gudan tahay haddii kulmiye shalay dhiiga u shubnay maanta hadduu halbowla goo xirmayna iska dhaw kalo ayuunta xisbiga kulmiye shirkiisii odayadeeni iyo qaasheeni hadashayna aynu taageersanahay nimanka xubnaha ay naga jiraana aanay metelin makaahil waxaan leeyahay saas u ujeedadanu kala wahayd hadalkana kala waqtiga oo gaaban awgii waxaan leeyahay inagu inama metelaan xubnahaasi waxaanaynu taageersanahay qaasheeni iyo odayadeeni waanaynu qaadacnay shirkii kulmiye shaqana kuma lihiin kulmiye wixii raacay inaga ma tirsana haddaynu nahay beesha makaahil waxaanu leenahay sida suldaanka beesha iyo ogaaska beeshu ay soo jeediyeen waxaanu mar labaad cadeynaa tii hore ku xoojinaynaa inaanu gabi ahaanba shirweynaha xisbiga kulmiye qaadacnay annagoo tixraacayna go'aamadii ay soo jeediyeen hoggaanka dhaqanka ee beeshu ogaaskii iyo suldaankii iyo cuqaashii halkay mareen baanu inaguna maraynaa wax kale ma jiraan shirweynaha guud ee lagu baaqayna waynu taageeraynaa insha Allah ta'ala waqtiga in loo soo ballamiyo kullay meelna qaade helmayno ayaanu malaynayaa meelna qaade helmayno kulmiyana waynu saasaynu ku qaadacnay ugana baxnay waxa kale halkan ka leenahay annagu hadaanu nahay dhalinyarta haweenka waxaan taageersanahay go'aankii ka soo baxay salaadiinta ugaaska uqaasha absolute sidiisaan u taageersanahay waxa kale taageersanahay uqaashu waxay ku dhawaaqeen yiraahdeen beeshu shir bay iskugu imanaysaa gudaha iyo dibadba waxaan leenahay shirkii uu socdaa